السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامية قيادة شرفت لي مركز الدنيا كجوكتان ما أنتنا برنامج كأنه حلو سابسين هاي وحلده intermittent fasting ومقعة إن شاء الله وادي سوق الهوس وادي سوق قرية فيديو وانكسو هوس قرية إن شاء الله وحواي وصون عمل واي وصير رمضان كعمل يعني أنا الحمد لله دين إسلامك بالبنسيسي وعن صوننا ما شاء الله إلهي دفتي صوننا وكعبنا لكن إلهي هذا سبحانه وتعالى حكمة بدن بكون جدي واي ورمضان كعافمة بدن بكون جري صونك حتى يعني قالتي أياس وقاتي إن معنا صونك قفكم إنه صوموا هي عافمة بدن جر كذا وسياسة أوكي مركا waxay soo ogaadeen gaaladu qofka markuu u soomo 16 saac ugu yaraan hadda waxay soo saareen 16 hours inuu qofka soomo see marka lagu soomayaa qaabka uu dhacay waa maxay faa'iidada ay leedahayna soonkan waa maxay marka aan ku bilowno horta waa maxay intermittent fasting soonkan waxa waaye waa yani muddo waaye period of time ayuu qofku cunto la'aan joogayaa from ساعات إلى ساعات سيدي يعني هذا حسوسيتي رمضان كي هبينك وكلا السواحدي أرورتي شنطة أرورنما قف السواي بكسورين جرني إلا يو مخرب كدم بنا وأفر جرني هذا نتي وكلا واي ولح يتوسع يقف كسرنا يا لح يتوانك ساعة فرق سامبل هدي قف وهرسع حبيني ما عشان دمرك وقدم بس وهرسع حبيني معنا wuxuu cunto waxiliga anaga istaan cunto cunay waxa waaye subaxda dambe 6 saac oo subaxnimo yani duhurnimo ka wada ilaa ikooda duhurnimo 12 to 1 pm duhurnimo ayuu qofku wax cunaya waa 16 hours 16 hours kaas maxaa marka faa'iido u leeyahay maxaa loo sameeyaa muxuu jirka caafimaad u leeyahay horta waxa dadkii cilmiga lahaa oo macnaha culimada cilmiga ay dhaqaatiirta adduunka waxay soo ogaadeen inay soonkan yani in waxyaabo badan daawo u yahay in dadka xitaa burburan lagu caateyn karo maajoor dadka burburan ay aad u isticmaalaysa isugu caateeyaan saacado badan baa la soonaanaya muhiimada kale meesha ku jirto waxa waaye intermittent fasting wuxuu faa'iido u leeyahay number 1 waxa waaye faa'iidooyinkiisa waxa kamid ah wuxuu jirka ka dilaa cellska ama unugyada unhealthy-ga caafimaadka aan ahayn ama unugyada macnaheedu daciifka ah ama unhealthy-ga ah ka baabasha iyadoo ay ku abuurayso unugyo caafimaad leh healthy cells qofku uu abuurmay jirkiisa ما فهمتي كدي waxa kale oo faa'iido u leedahay waxa waaye faa'iidada labaad waxa waaye digestive system-ka ay aad ugu fiican tahay deficit-ka qofka macnaha caloosha oo kale uu ka qabo gas iyo caloosha bloating waxa dhahaan caloosha ku dabrayso iyo waxyaabahaas dhan maxaa yeelay caloosha waxay helaysaa break waxa la dhaho yani waqti helaysaa ay ku nasato markaasna qashinkii ku jira ama sunti toxic wixii dhan oo baxdo saadaradeedna caloosha digestive system-ka deficit-ka aad ay muhiim ugu tahay soonkaneed waxay kale oo muhiim u tahay soonkan maskaxda madaxa ay dadka depression-ka qabo oo kale dadka ilooshaha badan oo macnaheedu ama qorshihii waxay ugu talagaleen ilaawa isla markii dadka noocaas oo kale aad ay maskaxdooda active oo dhigtaa oo maxaa la jiray aad maskaxda marka ugu fiican tahay soonkanida waxa kale oo soonkan uu ku fiican yahay waxa uu qofka age-kiisa aging-ka process-ka ay slow gareysaa yani ay yareysaa qofkii cimil degdeg ma ku dhacayo oo qofkii da'yari iyo qurux ayuu ka qaadayaa soonkan oo ma sha Allah yani caafimaadkeeda ay aad u badan soonkanida marka maxaa kale oo dhacay qofka inuu ku caato waa dhacaysa maxaa yeelay waliba dadka mataqaana burburan oo caloosha waaweyn oo kale waxa la dhahay caloosha aad u yaraysa soonkaneedii waayo dufankaas calooshaada ku keedsan ayaa maxaa la dhihi jiray shiilmayso oo macnaheedu jirkaaga energy isku bedelo ilaa ma cunayso adiga waxba energy ahaan aad u qaadanaysa ka bacdina sida ay ku burburaysaa faadka caloosha ku jirto saas oo qofka ku caatoobaya marka waxa kale oo fiican dadka blood pressure-ka qaba dhiig karka iyo sonkorta iyo kulli ramadaankan aad ayuu ugu fiican yahay
يعني رمضان كي الصحة أهانا ما هو مدى قالوا صار أنا كوسو صارين سببته مركي أوجادين فإيدوي ولي هي رمضان كا يصون كا أي كوسو صارين أنا تانيتي iyo qofku sidoo isku caateen karo marka 16 saac qof uu wax cunin marka diinta islaamka markaan dib ugu soo noqono ramadaanka ama soonka anaga diinta ilaahay waxayna faraysaa inaanan ilaahayba u soomeynaa ilaane inaanan cunto iyo biyo iyo waxba afka aan saarin niyada ka soonno indhaha ka soonno markas ka soonno laakiin ayaga soonkan waa soon caafimaad ahaan soo keensadeen ama dadka adduunka qaatiirta adduunka iyo cilmiga sayniska ku takhasuseen ee soo saareen bas yani caafimaadkooda iyo ay ku takeer garayaan bay u soo saareen ramadaankan marka waxa aan uga duwan tahay waxa waaye ayaga biyo way cabi karaan inta xilligaas ku jirto qofku biyo way cabi karaa coffee way cabi karaa sokor la'aan ah shaah way cabi karaa sokor la'aan because dad waxa jiro maxaa la jir shaah ama biyo la'aan shaah ama waxaan ka wadaa ay coffee la'aan subaxdii uu socon karin marka dadka shaqeeyo oo kale to subaxdii aniga waa jeclaa coffee aad u jeclaa subax marka soo kacayna koob coffee qac ka siiyo after marka biyo kulliinana waxa cabo marka biyo kulliinana cabo kadib ayaa waxaan sameeyaa kafeega ayaan qac ka siiyaa because niyada ma biidiga sida kafee qac ka siinin marka dadka shaaha jecel ama kafeega jecel waa cabi karaan laakiin sokor ma ku dari karaan caano loo faad camal oo ku darsan karaan laakiin sokor ma ku dari karaan maxaa yeelay ma la rabo systemkaaga inuu soo galo wax oo ku kalifaya inuu jirkaaga shaqeeyo digest systemkaaga yani dhaqdhaqaaqaas dhan ayaa la diidan yahay waxaa la rabaa rest inuu ku jiro oo jirkaaga uu nasanayo ma fahantay marka soonkaas aniga raftirkeyga inaa bilaabaa rabaa oo aad u fiican yahay inaan miisaankeyga xoogaa iskaga rido caafimaadkeygana aan ku kontaroosho ayaan rabaa waan bilaabo already aniga marka waxaa idinkugu soo bandhiga idinkana waxa waaye inaan soonkan ag faa'iista special gabdhaha raba inay is caateeyaan waayo waa wax fudud oo aad samayn kartid maalintii markii aad 16 saac yani maqribka casho hal saac hadii kugu dambayso waa iska seexanaysaa biyaha iska cabisa waa iska seexanaysaa wax ka dambeeyo cunto ma cunaysid subaxda marka soo kacdo shaaha kafeega sokor la'aanta waa iska cabi kartaa waa sugaysaa ilaa 6 saac ama 7 saac duhurnimo markaas aad cunto cunaysaa cuntooyinka cunaysa marka maxaa kamid ah cuntooyinka cunaysa waa inuu ku badan tahay greenka sida koostada iyo cabbage waxa iyo macnaha green saladka cagaaran cuntada cagaaran waa inay ku jirtaa waa inay bariis iyo baas hada cunaysa wax yar waa inaa ka cuntaa aad isku badanin ileen adiga process waxa ku jirta isku caateynaysa moogta waxaa la rabaa cuntadaada inay noqoto diet balance inay noqoto oo balance ay noqoto oo ay noqonin bariis meesha iska soo tuunsan iyo hilib kaliyaata carbohydrate iyo protein kaliya aysan noqonin inay meesha ku jirto vegetable iyo fruitsna waa very important si caafimaadkaaga u xalisid oo yani jirkaaga wixii u baahnaa oo nafaqo iyo fitamiino uu helo ilaa muddo badan ayuu waxba soo cunin marka sidaa daraadeeda waa inaad cuntadaada dhowr nooc isku jiro bariis yar koosto yar cabbage yar iyo waxa isku soo jarta cagaarkaaga saladkaaga hilib yar yani wax yar oo jagjag cuntid habeenkii kala digirtaada sokor badan iska ilaalisid aad u jeclaan cambuulada alaabteeda waaye yani dadka ila jeclaa ila dareemi kara marka cambuuladaada oo kale ama aad u fiican tahay maxaa yeelay borotiin badan oo ku jira cambuulada waxa fiber ay leedahay wax badan ay leedahay sareenka waxyaabahaas cuntooyinka mataqaanaa maxaa la gal kale oo fiber kale aad u fiican yahay caafimaadkan aad ugu fiican yahay marka labadaas waqti hadaa cuntid duurkii markaa qado cuntid habeenkiina casheer cuntid khalaas waxaa ku dhahay maasha allah ada waxaas arkaysa ya ujeedadii iyo dantii aad lahayd gaartay daartina calooshaada baaba'do intermittent fasting is the best way caloosha lagu caatay lagu yareeyo qofka jirkiisa ku qurux badnaado ku dhulubto ku caatoobo waxaana aad u fahmay hadda oo arintaas soo saaray sirtaanitid waa dadkan horumaray oo damadan laga horumaray gaalada cadaanka dadka cadaanka westernka hadda Facebook ama YouTube gelisid uu ku soo baxaya magacan hoos baa idinku soo qor doona cuntooyinka la qaato nidaamkiisa waxa dhan meesha ku soo baxay hadii aad rabtid barnaamijkan intermittent fasting inaan sii kordhiyo waxyaabo badan ku soo daro sida cuntooyinka la qaadanayo waxyaabaha la iska ilaalinayo kulli insha Allah hoos igu soo qoro comment below waan idil soo wadaagi doona walaaleyga qaariga ah ujeedadeeda waxa waaye insha Allah inaan kala faa'iideysano it's all about yani aan kala faa'iideysano tips waaye barnaamijyada waxaan u sameeyay wax kala ma ina aniga nafteeda iyo walaalahayga uga faa'iideeyo marka maanta intaas ay barnaamijkay ku egyahay waa mahadsantiin dhamaantiin khayr far badan aan idin rajeenaya wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh